wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Kenya Monica Juma oo wareysiisay wargeyska National Stadiums yahay magaalada Nairobi ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ku xiran in militariga Kenya ay ku sugan Soomaaliya laga soo saaro. Juma ayaa meesha ka saartay wararka dhawaanba la isla dhexmariyo ku saabsan in ay Kenya qorsheynayso siday ciidankeeda uga saari lahayd Soomaaliya, waxaana sharaxaad ka bixisay shuruudaha ku xiran tallaabada noocaasi ah. Runtii ma jiraan waxyaabaha u baahan in la kala cadeeyo. Kenya waxay qayb ka tahay wadamada ciidankooda ku jiraan AMISOM, waxaana halkaas ugu tagnay qaraar ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay. Laakiin waxaa la og yahay in howlaha Soomaaliya ka wadno goor horeba sii socdo laga soo bilaabo markii burburtay dowladda dhexe ee Soomaaliya 1991 ilaa 1992 ayuu tiri Juma, iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay sheegtay in dhowrka arrimood uu keeni karaan in ciidanka Kenya laga soo saaro Soomaaliya. Waxaanay tiri sababahan Soomaaliya u tagnay dabcan way jiraan shuruudo ku xiran anagoo AMISOM ah oo la midaysan yahay in ka soo baxno halkaasi. Shuruudahaasi waxay kala yihiin in nabad laga hirgeliyo Soomaaliya iyo in laga adkaado Al-Shabaab iyo ilaamaha gudaha ee awood u yeeshaan sugidda amniga. Hadalka Juma ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray in Kenya si gaar ah uga tixgelinayso tallaabada ku aadan sidii ciidankeeda uga saari lahayd Soomaaliya, waxaana cadeysay in mar walba qayb ka yihiin go'aanka guud ee AMISOM oo hoostaga Midowga Afrika. Bishii March ayay soo baxeen warar ku saabsan in Kenya isku diyaarinayso wadahadal ku aadan in ciidankeeda kala baxdo Soomaaliya. Xilligaasi waxaa la sheegay in wasiirka gaashaandhigga Monica Juma ay hormuud ka noqon doonto wadaxaajoodka bixitaanka Soomaaliya, kaasoo qayb ka ah qorshaha ciidanka AMISOM ee Soomaaliya looga saarayo sanadka 2021. Hadalhayntan ku saabsan bixitaanka ciidamada Kenya waxay socotay tan iyo horaantii sanadkii la soo dhaafay, markaasoo soo ifbaxay muranka dhinaca xadka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Ciidamada Kenya bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 gudaha u galay Soomaaliya. Fariisimihii militariga Kenya ee Soomaaliya ku yaala deegaanka hoostaga maamulka Jubaland ayaa dhawaanahan waxaa ka soo noqnoqonaya cabasho ku aadan dad rayida oo waxyeelo kala kulmay ciidamada qaybta ka AMISOM ee ku sugan agagaarkaasi, gaar ahaan kuwa Kenya. Inkastoo istoodan baaritaano ay sameeyeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland, dabayaaqadii bishii la soo dhaafay militariga dowladda Kenya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa rasaasan daqiiqo socotay ku dhex martay maalintii Sabtida ahayd xilli ay ku wada sugnaayeen xadka labada wadan u dhexeeya. Saraakiil maxalliga iyo dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay in isku dhaca labada ciidan ay ka yimaadeen kadib markii ciidanka Kenya rasaas ku fureen mudaharaadayaal Soomaaliya oo xoogaa ku sii dhawaaday. Arrintaas ayaa ka dhacday furinta ciidamada kala joogaan u dhaxaysa magaalooyinka Beled Xaawo iyo Mandera, gaar ahaan meel u dhow xadka la dhinaca waqooyi ee labada dal ee la wadaagan wadanka Itoobiya. Ciidamada xoogga Soomaaliya iyaguna ka jawaabay rasaastaasi, isla markaasina iyaguna rasaas ku furay ciidamada Kenya. Ma jiro khasaare ay sababtay rasaastaasi dhex martay labada ciidan iyo rasaastii ka horeysay lagu furay dadka rayidka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP. Shacabka mudaharaad ayaa ka cadhaysan dhacdo lagu soo tibiyay deegaanka Yoode ee u dhow degmada Ceelwaaq, halkaasoo la sheegay in ciidamada ka tirsan kuwa Kenya ku dileen hal wiil oo Soomaaliya, sidoo kalena ay kaxeysteen 3 nin oo ay ku jiraan wiilka dhintay aabihii iyo walaalkii. oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom. ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay? waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacag ku jirto oo banka Dahabshiil ah, dalxiis aad ku degto hoteelada Damal, iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa.
waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111